casharkan waxa uu ka mid yahay casharada kooraska online instructor training kooraskaas oo lagu baran doono qaabka online-ka wax loogu dhigo amba qaabka online-ka aad casharada ugu gudbin lahayd casharada iyo contentiska qaabka u diyaarin lahayd imtixaanada online-ka soo loo qaado sida loo duubo muuqaalada iyo fiidiyowyada iyadoo la isticmaalayo shaashada computerkaaga loona isticmaalayo application-ka loo yaqaano Camtasia isku soo wada duuduubo kooraskani bilow ilaa dhamaad waxa uu xoog saari doonaa inuu macalinka dhinac kasta ka tababaro oo ku saabsan inuu tacliinta uu ku dhigo qaab online ah amba uu ardayda ugu gudbiyo qaab online ah haddaba cidii u diyaara in iska diiwaan geliso kooraskan waxay la soo xiriiri doontaa WhatsApp numberka shaashada hortaada kaaga muuqda بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إذا لهانتي بكل تابون يسوس النقد مركله عشر كينن مانتا وحين كبران دونا إنه إديتينكا أم بإديتينكا أساسيكا أم بقابك الله بي فيديوسكا قيبت هذا أساسيكا إنه وحكوغا إنه marka bal waxaynu sameyn doonaa labadii clip ee aynu soo duubnay ee screen-keenaha bal inaynu edit gareyno si aad ugu fahantaan barka koowaad waxaynu sameyn doonaa mar walba oo inuu basic editing ugu horeeya inaad codkaaga iyo fiidiyogaaga aanad kala qaadin imika aanu codka waxaan ku soo qaatay mobile oo waa kuwan voice 1 iyo voice 2 gaya oo aniga waxa iga xun computerkayga codkiisa laakiin sayidinku si toos ah marka tirahdaan record soundkaagu kula socon doona oo maxaad ku garan doontaa inuu soundku kula socon doono markaad record gareynayso ee xagana joogto bartan yari amba lead kan yari buu boodi doona adigoon tan dhaqaajinayn ayuu laakiin leadka akhtarka iyo leemiga isugu jira leadka imika halka inooga dooran leadkaasi uu boodboodsiin doona marka saas ayaad sameyn doontaa markan halka kaga tago editing-ka marka hadaba la sameynayo waxa ugu muhiimsan in lead-keenan aynu amba video-geen halkan yaala inaad marka hore video-gaaga amba project-gaaga aad ka dhigto HD dhammaan clips-ka kugu jiro dhan wada dooranaysa ogsoonow haddii aad laba clip kala duubtay clip-ka koowaad aad duubtay unba halkan ku soo galaya clip-ka labaad meesha uu ka maqnaanaya oo saas oo kale ahaansa kadibna video-gii labaad baad soo qaadanaysaa soo dhiganaysaa codkiisii labaad marka aad soo dhigtay uu la socdaa laakiin se aniga ilama socdo oo anigu waan soo kala qaatay oo mobile baan ku qaaday codka laakiin se idinku mobile ku kala qaadi maysiin step-ka dheerna mari maysiin laakiin se kaliya taw isku kii socdaan iyagoo suuqiin dul saaran bay soo ku dul dhacayaan kadibna waxaad sameyn doontaa markuu saa yahay dhamaantood wada highlight gareyn doontaa kadibna project settings baad tagi doontaa project baad ka sii dhex dooran doontaa xagga custom-ka waxaad u bedeli doontaa marka ugu horeysa HD kadibna apply baad leedahay marka video-gii wuxuu tagay guntaasuu tagay Soomaha gunta markuu tagay markaad ku duubaysid application gunta ayuu tagayaa qaabka caynkaas oo kala amba shape-ka caynkan oo kala ayuu noqonayaa kadibna waxaad sameyn doontaa cidhifkaas aad qaban doontaa hareertaas shaad soo taabsiin doontaa haddana cidhifkan kale ayaad qaban doontaa hareertaas shaad soo taabsiin doontaa labada hareerood marka soo taabsisay haddana clip-kii kale u tagi doontaa clip-kii kalena muxuu sameeyay inuu intii hareerood dhan madowdahay isaga iyo codkiisaba highlight garayso kadibna waxaad sameyn doontaa isaga wad qaban doontaa hareertaas aad soo taabsiin doontaa haddana ka kale aad qaban doontaa hareertaas aad soo taabsiin doontaa kan wuu ku wada buuxsamay oo intii hoos oo dhan way ku wada buuxsantay maxay kugu wada buuxsantay kan waxaad ka qaaday full screen waxaad tolo slides-ka marka jeedinayso qaabkaas oo kale kugu soo muuqanayo full screen laakiin se kan full screen maaha oo intii yareed ee hoose amba standard-ka yaraa hoose ayaynu ka tagnay saa daraadeed video clip-keenu wuxuu noqonayaa in inta yare sare amba labada dhinac ay madoobaadaan video-iskeedana wax ciladi ma jirto dhammaan clips-keeda imika daawanayso dhan intaas way wada madowdahay ee screen-ka computer-ka ku soo duubay cidina kama dareento waana tayo loogu talagalay oo standard ah oo lagu duubo haddaba bal inta aynu kaga tagno video-geen barta laga dhigayo haddaba marka la jarjarayo video-ga marka ugu horeysa video-gaaga si aad u jarto saddex marxaladood ayaad u jari karaysaa waa marxaladda koowaad waxa weeyaan inaad video-gaagan aad meeshii aad doonayso imika inaan intaa hore oo dhan ka jaran doonaya bal aan soo weynaysto tani waa zooming-kii timeline-ka baan u jeedaa xaggana video-gaagii baad ka daawanaysaa kolba wixii aad ka bedesho oo video-gaygan imika wixii aan halkan ka bedelo halkan baan ka dhex daawanaya oo play baan siisanaya laakiin si aan taa u sameeyo marka ugu horeysa screen-kaygan xaggaasan tegaya kadibna qaybta intaasoo dhan aan ka jaran doonaya dhammaantood waan wada select garaynaya kadibna waxaan taabanaya xarafka S amba waxaan tagayaa xaggaasan tagaya baasha yar ee imika inoo dooran ee ay ku qorantay split haddii kale xarafka S baan taabanaya markaan taabto laba igu kala jabiyay qaybtanna waa qaybtanna waa qaybtan baan iska dooranaya iska delete garaynaya kadibna qaybtaydii kale ay soo hadhay
kadibna meeshaa bannaan videogayga waan ka ilaalinaya waayo meeshaa bannaani haddii iminka aynu daawano waxay samayn doontaa inay samayso meel madow bal ila daawada shaashadeennan yar iminka inaynu qaabkay ilaa iminka waxu marayso waxaad arkaysaan intan hore oo dhani way madoobeyd marka inta madow mar walba ood ka ilaalin doontaa markaad kilibiska kala jarto waad isku xidhi doontaa kadibna iminka kilibiskayga saasoo kale usoo bilaabmaya kadibna saa markuu bartanka marayay haddana waxaan arkay in yaroo dhexda ah oon loo baahnayn oonan hadal khaldan aan ku hadlayo waxaan samaysanayaa inaan stabkii koowaad aynu ku kala jarayna waad heshay haddana stabkii koowaad waynu mari karaynaa oo xaggan waxaynu odhan karaynaa split haddana xaggan kale aynu tegi karnaa bartii labaad aan doonay inaan ka jaro haddana split baan odhan karaya kadibna intii dhexdan ka dhigay garayn karaya laakiinse taa waynu naqaanay habkii labaad baad u baahantihiin inaad bartaan waxaad samayn doontaa habka labaad barta doonaysa inaad ka bilowdid badmo koorsarkaaga yar istaajin doontaa kadibna bartaa yare cas ayaad dhaqaajin doontaa oo jiidi doontaa ilaa meeshii aad doonaysa inaad ka dhiliid garaysa aad gaadhay kadib intaa markaad gaadhay xarafkii dhiliid ayaad taaban doontaa keyboardkaaga kadibna waad isku soo xidhi doontaa maxaynu samaynay waa laba dariiq oo fudud qof wala doonaya inuu dhiliid gareeyo anoo garanayo welibana ha moodin intaa casoo keliya ta la jiidi karayo dhinacan kale tan akhtarka ee ku taalana iyadana waad jiidi karaysaa hareertaa shishe markaad geyso ayaad iyadana sidoo kale dhiliid siin karaysaa intii kale loo baahnayna waan ka dhiliid garay haddana waan soo waday waxaan sameeyey inaan samaystay inaan doonayo kilibkaygan inaan wax baarti soo duldhigo inaan meel gaara tilmaamo oon meesha aan tilmaamayo aan goobo yaroo cas kusoo xidho meeshaa goobada cas aynu kusoo xidhayno casharkeenan casharka ku xigay aynu ku baran doonaa laakiinse waxaa muhiima mar walba inaad kilibiskaaga waxyaabaha hawada aad ka jarjarto hawada maxaad ku garan doontaa weeyaan codku markuu qofku hadlayo wuxuu sameeyaa inuu soundku marna kaco marna hoos u dhaco kadibna codkan waxaad ka garan doontaa meesha aanad hadlaynin iyo meeshaad hadlayso laba marxaladood baad ku garan doontaa mar videogan markaan bale yidhaahdo markaan screenkeeda duubanayo xaggaas imika saasaan usoo waxaad arkaysaan inaan hadlayo kadibna meeshaanan hadlaynin waad ka jaraysaa marka labaadna waxa weeyaan mawjadahan yaryar ee kacsani halkan haddaad aragtaan mawjadahan kacsani waa hadalkii aan lahaa markuu qofku hadalka ka soo baxayo way kackacaysaa markaan aamuso imika eeg waan yara aamusayaa marka aan aamusanahayna sanoo kale noqonaysa imika xaggan haddii aynu sinaa dhegeysta waa meel aan aamusnaa meeshaad aamusantahay markaa maxaad samayn doontaa waad ka jari doontaa ka jaristaynu ka jaraynana waxaan samayn doonaa inaad idinkana idin tuso qaabkii saddexaad ee wax loo jarayay qaabkii saddexaad ee wax loo jarayay maxay tahay saasaan u salagti garayn doonaa kadibna waan soo yaraynayaa oo keliya hareertaa shishan ka soo yaraynaya laakiin qaabka saddexaadii waxaad isticmaali kartaa markaad keliya ta aad korna joogto marka dhammaantood wada haylaad garaysansa haddii kale esba taabanaysa ay bartanka ku jirto kadibna dhiliid baan siinaya iminka maxaa samaystay intaydaasi cod bay leedahay waana video kilibkii aan u baahnaa inaan dadka tuso sidoo kale videogaygan waxaan soo gelin karayaa qoraal waxaad tegi doontaa si aad qoraal usoo geliso animation halka ay ku qoran tahay kadibna halkan ayaad kasoo dhex dooran doontaa qoraal noociya ayaad doonaysaa inaad soo geliso tagastigan baan soo dooranayaa waan soo qaaday xaggan baan soo dhiganaya a b c baa ku qornayd waan ku dul dhufanaya magacii aan doonayana halkan ku qoranaya magac iminka magaca aad rabtaan anuu halkan ku qortay kadibna magaca aad rabto ayaad aduu halkan ku qoranaysaa magacii baad halkan ku qoraysaa waad dooranaysaa xaggan qaybtan propertieska tegaysa hadday kaa xidhantay saa soo furaysaa haddii kalena ku furantay midabkeedii baad halkan ka bedelaysaa midabka ay door baad leedahay fartii weyney baad leedahay fartii yaree baad leedahay fartii booldi iga dhig baad leedahay fartii nooceedii iga bedel oo nooca kale soo door baad leedahay fartii koornaha i dhig baad leedahay koornahan kale i dhig bartanka i dhig kolba sidii aad u rabto ayaad u dhigaysaa xarafka ugu horeeya iga baabii kadibna capital iga dhig qoraalkii haddaad doonaysa inaad qaado isagii baad dooranaysaa kadibna meesha doonaysay ee videogaaga ka mid a ayaad dhiganaysaa intaasi waa halka inta kale ee inoo soo hadhay waxa weeyaan inaynu samayno amba aynu sidoo kale duldhigno loogooyinkii qoraalada goobooyinka la duldhigayo iyo qoraalada qaababkeyga kala duwan ee loo duldhigayo iyo welibana soo dhaweyntii waxyaabahaasoo dhan casharkeenan casharka ku xiga ayaynu baran doonaa laakiinse marnaba ha ka tegina markii hore waxaan idiin sheegay inaynu ka jari doonno video clipkeenna aynu slideska kusoo diyaarinaynay inaynu ka jari doonno intaa ugu horeysa amba intaa ilaa iyo halkaasoo kalea inaynu ka jari doonno aynu ka bilaabi doonno welcometa de xaggan waan soo dhaweysanayaa keliyata san iminkaba idiin soo sheegayay kadibna bartaa codkaygu ka bilaabmayo unbaan tegayaa intan kaleo dhanna waxaan siinayaa xarafkii s kadibna waan dooranayaa delete baan siinayaa iminka haddaan eegno in keliyata intii aan hadlayay ee slideskayga unbaa isoo hadhay kadibna slidesku marka ay kaa dhamaadaan ee bartaa madow kuusoo waxadho ayaad waxaad odhan doontaa haddana soo weynayso
bartay ku dhamaanayso iyaga bartaasay weli bartaasay ku dhamaanaysaa kadibna barta ay ku dhamaanayso ayaan joojinaya waan dooranaya xarafka yes baan taabanaya inta kalena waan ka delete garaynaya waxa ii soo hadhay oo kaliya ta slideskaygii inaan samaysto sidoo kale shaashadan waad soo weynaysan kartaa bartaas dhigaysaa markaa waxaad samayn doontaa gacantaa yare ee iminka inoo muuqataa markay kuu soo baxdo ayaad shaashadii hoos u soo riixanaysaa oo hoos ayay kugu soo degtay haddaad doontidna kor baad iskaga yaraynaysaa oo layeriskii qaybtii layeriska ayaa kuu soo weynaatay sidoo kale waxaad isweydiinaysaan qaabkee wax loo koobiyeeyaa qaabkee wax loo kadgaraya iminka intan haddaan doonayo inaan koobiyeeyo waxaan dooranaya halka ay ku qoran tahay copy haddii kale waxaan qabanayaa control iyo c kadibna bartan baan imanayaa si aan u soo bastigareeyo control iyo v baan leeyahay waa kan copygeedii barta igu sameeyey haddaad doonayso inaad dib uga noqoto shay aad samaysayna control iyo z baad qabanaysaa sidoo kale haddaad doonayso inaad kan meesha guud ahaan aad ka kadgarayso bartaasaad tegi kartaa waxaad odhan kartaa control iyo x oo control iyo x amba halkaasaad tegi doontaa kadibna wuu iga kadgariyey haddaad doonayso inaad shaygii aad kadgaraysatay aad kusoo bastigaraysato bartaasaad tegi doontaa waxaad odhan doontaa besti haddii kale waxaad odhan doontaa control iyo v sidoo kale shaygadan aynu qabanno dhan haddaynu doonayno inaynu dib ugu noqonno halkaasaynu tegi doonaa dib uga noqo waa control iyo z waa undo haddaad doonayso inaad dib shaygii aad undo tiri inaad ka noqotona ood tiraahdo shaygii aad sameeyey iidaana redo baad odhanaysaa oo control iyo y baad qabanaysaa haddii kale godkaa yare kale ayaad isagana qaban doontaa dhammaan intaasoo dhan waa waxyaabihii aasaasiga ahaa laakiinse casharka dambena waxaynu u geli doonaa inaynu intaa kasii anba qaadno oo aynu soo dhaweyntii iyo waxyaabo badan aynu samayno casharkan casharka ku xiga aynu kaamtiishiyo ku baranno intaynu sugu iman doonno waa aniga oo idinka idin leh ismaqal aragti dambe oo xiiso badan